waa maalin taariikhi ah oo muujinaysa sida ay dowladda federaalka Soomaaliya uga go'an tahay horumarka dalka iyo kobaca dhaqaalaha. waxaa idinku wargelinaynaa in golaha wasiirada maanta ay ansixiyeen qorshihii isbeddelka qaranka oo ah qorshihii bedelay qorshaha horumarka qaranka ee 2020 ilaa 2024 ee sanadkii hadda dhamaaday. qorshahan ee qorshaha isbeddelka qaranka wuxuu socon doonaa sanadkan 2025 ilaa 2029 waa qorsho hagi doona 5 sano oo soo socota. qorshahan waxa uu xudun u noqonayaa dadaalada aan ku jirno xoojinta hay'adaha dawladda, kobcinta ganacsiga gaarka loo leeyahay, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo la qabsiga isbeddelka cimilada. ujeedadu waa in la dhiso mustaqbal ay dhammaan shacabka Soomaaliyeed dareemayaan horumarkiisa, laguna gaaro kobac dhaqaalo oo waara. maxaa qorshahan loo sameeyey? qorshahan isbeddelka qaranka waxaa loo sameeyey waa qorshe 5 sano ah oo ku dhisan casharadii laga bartay qorshihii 9aad ee horumarinta qaranka Soomaaliyeed ee dhamaaday 2024. wuxuu xoojinayaa hanaanka dawladnimada, dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada. wuxuu la jaanqaadayaa isbeddelada caalamiga ah ee la xiriira horumarka waara. qorshahan wuxuu ka kooban yahay tiirarka amaba inta qaybood oo waaweyn oo ka kooban yahay. qorshahan wuxuu diiradda saarayaa 4 tiir oo waaweyn. 1. isbeddelka maamulka dawladnimada, kaasoo ah xoojinta dawlad wanaagga, ka hadlaya amniga, wuxuu ka hadlayaa dib u habeynta hay'adaha dawladda. tiirka 2 waa tiirka horumarinta dhaqaalaha waara, kaas oo kor u qaadaya wax soo saarka beeraha, xoolaha, kalluumaysiga, ganacsiga gaarka loo leeyahay. tiirka 3 ama qaybta 3 oo muhiimka ah oo qorshahani ka kooban yahay waa arrimaha bulshada iyo karaamka aadamiga. kani wuxuu kor u qaadayaa tiirkan ama wuxuu horumarinayaa waxbarashada dalka, caafimaadka, biyaha, daryeelka arrimaha bulshada iyo xuquuqda insaanka. tiirka 4 oo tiir asagana aad muhiim ah dalkeenana muhiim u yahay maadaama aafooyinka isbeddelka cimilada dalka ay aad u dhibaataysay, dad badanna ay xoolaha iyo beeraha iyo dhaqaalihii ay lahaayeen ay burburiyeen. wuxuu xoogga saarayaa arrimaha deegaanka iyo adkaysiga cimilada. kani marka wuxuu aad iyo aad tiirkani ama qaybtani wuxuu u yaraynayaa khataraha masiibooyinka iyo horumarinta xagga dhaqaalaha cagaaran waxa la dhaha in lagu horumariyo. qorshahani wuxuu soo kordhinayaa qorshahani isbeddelka qaranka wuxuu xoojinayaa kobaca dhaqaalaha, maalgelinta wax soo saarka iyo tamarta, dib u habeynta lagu xoojinayo amniga iyo maamulkiisa, ballaarinta adeegyada arrimaha bulshada asigoo horumarinaya arrimaha caafimaadka, waxbarashada, abuurista fursado shaqo ama waxa la dhahaa job creation. siyaasadda wax ku oolka ah oo wax ka qabanaysa arrimaha caqabadaha cimilada, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin wadooyinka, tamarta iyo adeegyada digitalka ayaa lagu horumarinayaa. qorshahan waxa uu ka hadlayaa ama qorshahan wuxuu ka dhashay la tashiyo ballaaran oo lala yeeshay hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya, dawlad goboleedyada, ganacsatada, hay'adaha horumarinta ka shaqeeya, bulshada rayidka. waxaan dhammaantood ugu mahadcelinaynaa bahwadaagta qof kasta iyo hay'ad kasta roolkii iyo doorkii ay ka qaateen diyaarinta qorshaha isbeddelka qaranka. dawladda Soomaaliya waxay bilaabi doontaa hergelinta qorshahan cusub ee qorshaha isbeddelka qaranka iyadoo loo marayo barnaamijyo iyo dib u habeyn siyaasadeed si loo xaqiijiyo isla xisaabtanka, wax ku oolnimada ah iyo waafajinta mudnaanta qaran. haddaba waxaan ugu baaqaynaa dhammaan daneeyaasha, ganacsatada, bulshada rayidka, hay'adaha horumarinta in ay si wada jir ah ugu shaqeeyaan hirgelinta qorshahan si Soomaaliya ay u gaarto horumar waara. aad iyo aad u mahadsantihiin bahda media iyo shacabka Soomaaliyeed oo fiirsanaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.